ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in aysan jirin dawlado shisheeye oo bixiya mushaarka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dagaalkii Xiraale oo kordhay iyo xaaladda oo saaka degan. hay-ad u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegtay in duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya lagu dilo dad shacab ah. al-shabaab oo xalay saacado kooban la wareegay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wasiirka ciyaaraha Soomaaliya oo sheegtay in orodyahanadii guusha ka soo gaaray tartankii Djibouti dhawaan loo diri doono tartan kale oo caalami ah. maamulka degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo dalbaday in ciidamo si degdeg ah loo kala dhex dhigo Maleeshiya dhawaan ku dagaalamay degmadaasi. dagaalamayaasha al-shabaab oo isaga baxay saldhigyo ay ku lahayeen gobolka Bari ee Puntland. dad ku sumoobay raashin gargaar gudaha dalka Uganda. iyo daadad khasaare ka geystay dalka Mareykanka. markale ku celi warbal ii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba kula wanaagsan saaxiibayaal waa 19 bisha 3 ee Maaj sanadka 2019 warkaas oo dhan saakay waxaa la diyaaray Xafsa Khaliif Cumar. ومحسنتها حسين عبد الله محمد بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كسو dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan xilli ay soo tarayso cabashada mushaarleyda ee ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu sheegay inaysan jirin dawlado shisheeye oo bixiya mushaaraadka ciidamada qalabka sida warkan uu ku faahfaahinayo Farxaan Maxamed Xuseen. munaasabadu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir isla markaana looga hadlayay dardargelinta isdhexgalka bulshada iyo hay'adaha ammaanka ayaa waxa xal lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabada waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, qaar ka tirsan taliyaasha ciidanka iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. inta ay socotay munaasabada looga hadlayay dardargelinta isdhexgalka bulshada iyo hay'adaha ammaanka ayaa waxa diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay in ay isla shaqeeyaan ciidamada iyo shacabka. iyadoo maalmihii u dambeeyay ciidamada booliiska magaalada Muqdisho ay dilil u geysteen qaar ka tirsan dhalinyarada ka xaysa mootobajaajka. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Bashiir Cabdi Maxamed oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in marka hore shacabka loogu baahan yahay in qof kasta uu amaankiisa sugo isla markaana shacabka ka dalbaday in ay la shaqeeyaan ciidamada dawladda sida uu sheegay taliyaha. meelaha la gaaray ra'iisul wasaaruhu turti amniga wuxuu ballan qaaday waa la fuliyay waxa la wax urbaanay inuu dhawaan la keenay ama ciidan ha noqoto ama keenada ha noqoto isna waxa dhacay waxaan rabaa inaan laba eray arrinta ka yiraahdo waa mid waxa dhacay xamar ka dhaca mid idaacadaha dhageysta New Zealand waa ka dhacay United States of America Mareykanka waa ka dhacay New York ba ka dhacay Atlanta Georgia ka dhacay London bay ka dhacay Paris bay ka dhacay Barcelona ka dhacay Madrid dambiyada noocaana oo extremist xadaafka waxa weeyse amniga iyo iskale amniga shacabka ummadda Soomaaliyeed iyo iskale qofka muwaadinka isaga laga rabo inuu amnigiisa ilaashado waxaan matalada kaga dhigayaa waxa jira degmooyin adduunka ka tirsan ama magaalooyin stationka booliisku hal qof oo kaliya jooga inta kale ta automated weeyaan hal qof kaliya stationka jooga waa la gaaray waxa arkaysaa degmooyin saldhigyada la soo xiray oo hal saldhig la soo keenayo amniga ayaa ilaashada shacabkaas ayaa ilaashada shacabka ummadda Soomaaliyeed waxa ka codsanayna marka aan ka codsanayna waxa weey amnigiina idinka iskale anaguna waxaan nahay tooliska ku shaqeynaayo adeegaasna fulinayna ballan waa habeen iyo maalin waa loo taagan yahay habeen iyo maalin waa taaganay ciidanka booliiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed habeen iyo maalin juhdi u soo taagan yahay dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay nala qaataan amniga inuu yahay amni ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u baahantay. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo munaasabada soo xiray isla markaana inta badan uu hadalkiisa siiyay ciidamada dawladda ayaa waxa uu sheegay in mushaarka ciidamada dawladda ay markii hore ay bixin jireen dawlado kala duwan haatan ay bixiso dawladda Soomaaliya. waxaan rabaa inaan ka hadalno arrimaha ciidanka iyo dib u habeyntiisa. waxaan rabaa inaan idin sheego sidii aan u nimid askari walba wuxuu heli jiray xuquuqdiisa uuna heli doonaa laakiin waxaan rabaa inaan taliyayaasha caawa iyo ciidamada halkan jooga aniga iyagu aan runta isu sheegno idinkuna aad markhaati noo noqotaan laylidama hadle waxaan rabaa inaad dhegaysataan mushaarka ciidamada waxaa bixin jiray dawladaha Mareykanka Turkiga isu taga Imaaraadka Carabta waxay ku bixin jireen malaayiin dollar hadda lacagtii ay bixin jireen iyagu ma bixiyaan waxa bixiya canshuurta laga soo ururiyo
waxaan markaa rabaa inaan ka hadalno 2017 inta dawladdeena ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar 2018 waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar 2019 waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar 2016 iyo 2017 waxaa lagu bixiyay 43 milyan iyo 47 milyan. Ra'iisul Wasaaraha oo sii hadlayay waxa uu sheegay in marnabo dawladda Soomaaliya ay aqbali doonin askari aan joogin goobtiisa shaqo inuu qaato mishaarka dawladda. waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabtano waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah askari walba oo la diiwaan geliyayna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaaya inuu maqlo dib habeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyay sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankina dib habeyn lagu sameyn boqolaalka milyan haddaanay toos idin soo gaarin adduunyadu ma aaminayso waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha banaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhamaato xuquuqdiisa inuu helo laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dawladda Soomaaliya oo aad hotel waardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama been lagu soo qoray ama kan email ay jirto aqoontaas uu ka soo dhamaaday inta aniga dalkan ra'iisul wasaarahan ka codkaasi ra'iisul wasaare Khayri waxa uu u dambeeyay warkii Farxaan Maxamed Xuseen oo inuu faahfaahinayay tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dagaalka Xiraale ayaa sii korortay waxaana khasaaraha dhimasho lagu sheegay inay ku dhow yihiin 40 qof halka dhaawaca uu intaas ka badan yahay sidoo kale xaalad deganaansho ayaa saakay laga soo sheegayaa deegaanadii lagu dagaalamay Sharmaarka Maxamed Maxamuud ayaa warkan inoo soo diray xaaladda ganaashaha ayaa saaka laga dareemaya deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud oo shalay dagaal culus ku dhex maray laba maleeshiya beeleed oo wada daga deegaankaasi dagaalka shalay oo ahaa mid culus ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana si weyn looga dareemay deegaanada gobolada dhexe inta badan dadkii ku noolaa Xiraale ayaa ka barakacay deegaanka kadib cabsi ay ka qabaan in mar kale lagu dul dagaalamo wali waxa duleedka Xiraale isku horfadhiya maleeshiyaadkii shalay ku dagaalamay Xiraale waxaana cabsi badan laga qabaa in mar kale dirir ku dhex marto dhinaca kale waxa si weyn isu soo taraya baaqyada ka waxgaradka deegaanka oo ku aada in la joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay Xiraale si kastaba haatee maamulka deegaanka Xiraale ayaa galmudug ku eedeeyay dagaalkii shalay ka dhacay Xiraale mas'uuliyiin u hadashay maamulka galmudugna way iska fogeeyeen kamid ahaanshaha dagaalkaasi iyagoo sheegay in dagaalkaasi u dhaxeeyo laba maleeshiya beeleed oo wada daga deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud Sharmaarke Maxamed Maxamuud Radio Kulmiye magaalada Cadaado hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in duqeymaha uu Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya lagu dilay dad shacab ah sida warkan uu ku dhameystirayo Maxamed Axmed Maxamuud hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dad shacab ah ay ku dhinteen duqeymaha Mareykanku uu Soomaaliya ka geysto dawladda Mareykanku waa inay samaysaa baaritaan dhexdhexaad ah oo ay ku cadeynayso duqeymaha sii kordhaya ee ay Soomaaliya ka geysato oo dilay tiro badan oo shacab ah ayay warbixinteeda cusub ku sheegtay Amnesty International hay-addu waxa ay sheegtay in dagaalka qarsoon ee Mareykanku uu ka wado Soomaaliya uu muujinayo in 14 qof oo shacab ah ay ku dhinteen tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen 5 duqeymood oo kaliya oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka geysteen gobolka Shabeellaha Hoose qaybaha ay ka maamulaan Al-Shabaab weeraradu waxa ay muuqdaan in ay ku xadgudbeen xeerka caalamiga ah ee dagaalka qaarkoodna waxa ay noqon karaan dambiyo dagaal Amnesty waxa ay sheegtay markii ay baaritaankeeda ku ogaanaysay khasaaraha shacabka gaaray in taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika uu inkiray in dad shacab ah uu khasaare ka soo gaaray howlgalladooda Soomaaliya tirada geerida shacabka ee aan daaha ka qaadnay waxa ay soo jeedinaysaa sirta ku hareeraysan doorka Mareykanka ee dagaalka Soomaaliya kaasi oo caad ku daboolaya xasaanadda ayuu yiri Brian Castina oo Amnesty International kala taliya xasaradaha iyo howlgallada militariga waxaanu ogaanay waxa ay si toos ah uga soo horjeedaa militariga Mareykanka oo tirada dhimashada shacabka ku sheegay eber
sheegashadaasi waxa ay u muuqataa midaan xaqiiqo ahayn markii aad tixgeliso duqaymaha maraykanku uu ilaa sanadkii 2016 fulinayey ayuu hadalkiisa ku sii daray Brian Cassana. Amnesty International waxa ay sheegtay in baarayaal hay-adda ka tirsan ay Soomaaliya yimaadeen islamarkaana ay wareysteen 150 qof oo ay ka mid yihiin goobjoogayaal, qaraabo, dadka barakacay duqaymaha Maraykanka iyo qubaro. sidoo kale waxaa la sameeyey baaritaan dheecaanada ah oo lagu ogaaday khasaaraha rayidka gaaray. warbixintu waxa ay shaaca ka qaaday in waxyeelada shacabku ay korortay kadib markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu amray in duqaymaha la kordhiyo islamarkaana uu hoos u dhigay heerka badbaadada ee duqaymaha. 9 bilood ee u dambeeyay sanadkii 2017 in ka badan 34 weerar ayuu Maraykanku ka geystay Soomaaliya, taasi oo ka badan wadarta duqaymihii uu geystay intii u dhaxaysay 2012-2016. 2018 Maraykanku waxa uu Soomaaliya ka geystay 47 duqaymood halka sanadkan oo bishiisii saddexaad aan ku jirnaan uu geystay 24 duqaymood. hay-addu waxa ay tusaale u soo qaadatay duqayn uu Maraykanku ka geystay deegaan magaciisa la yiraahdo Faarax Wacays oo Africom uu sheegay in duqayntaas ay dadka ku dhaawacmay ahaayeen al-shabaab, balse baaritaan ay samaysay Amnesty International ay ku ogaatay in dadka dhaawacmay ay ahaayeen 2 rag ah iyo 5 dumar iyo carruur isugu jira oo dhammaantoodba ah dad shacab ah. al-shabaabna uu khasaare ka soo gaaray. sidoo kale bishii November ee sanadkii 2017 duqayn Maraykanku uu ka geystay Daarusalaam ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ku dhintay 3 qof oo beeraley ah. 6 December sanadkii 2017 5 qof oo shacab ah oo 2 ay carruur yihiin ayaa ku dhintay kadib markii gaari ay al-shabaab qarax ku soo rareen uu ku qaraxay deegaanka Ilimey islamarkaana ay ku burbureen ugu yaraan 10 guri. Africom waxa uu beeniyey in weerarka Ilimey uu ku lug lahaa, laakiin Amnesty International ayaa baaritaan ku ogaatay heshayna cadaymo muujinaya in duqayn lala beegsaday gaariga qaraxa siday ee al-shabaab. dadka duqaymaha Maraykanku ay sameeyaan fursad uma helaan cadaalad. dowladda Soomaaliya iyo Maraykanka waxa looga baahan yahay in ay dhameeyaan hufnaan la'aanta, waana inay u ogolaadaan bulshooyinka dhibku gaaray inay dhibkooda wariyaan. cadaaladda in la helo waa ay adag tahay ayay tiri Amnesty. waxaa xalay degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe saacado kooban la wareegay dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii ay weerar ku soo qaadeen Yunis Duraan Cali. warkan haynoo faahfaahiyo. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ee dagaalamayaasha shabaab ayaa xaray dagaal culus waxa uu ku dhex maray gudaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. dagaalka ayaa waxa soo qaaday shabaab iyagoo 2 jiho ka soo weeraray degmada Balcad. al-shabaab ayaa waxa la sheegay in la wareegeen qaybo ka mid ah degmada Balcad intuu dagaalka socday, maxaabiis badanna ka daayeen saldhigga booliska degmadaasi. rasaasta ay isweydaarsanayeen labada dhinac ayaa waxaa laga maqlayay tuulooyinka ku xiran Balcad, iyagoo markii dambe shabaab dib uga noqdeen degmadaasi ay soo weerareen kadib muddo uu dagaal ka socday gudaha iyo daafaha degmadaasi. dagaalamayaasha shabaab ayaa markay gudaha u galeen degmada Balcad waxaa lagu soo warramayaa inay gubeen goobo ganacsi iyo baabuur la sheegay inay leeyihiin dad shacab ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan Hiirshabeelle. dhinaca kale ciidamada Midowga Afrika ayaa weerarka kadib waxa ay dhowr jiho u tuuriyeen madaafiic iyagoo ka tuuriyay warshadii hore ee dharka Balcad. si dhaba looma oga khasaaraha ka dhashay weerarka. mas'uuliyiinta degmada Balcad iyo saraakiil ciidan oo jooga Balcad oo aan la hadalnay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan dagaalkii xalay ciidamada dawladda iyo shabaab ku dhex maray degmada Balcad, balse wararka qaar ayaa sheegaya in labada dhinac shabaab iyo ciidanka dawladda uu khasaare jiro inkastoo aan lahayn tirada rasmiga ah ay wax ku noqotay dagaalka. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ee ku sugnaa degmada Balcad ayaa iskaga baxay degmada markii al-shabaab weerar ku qaadeen. hase ahaatee dadka deegaanka ayaa saakin oo sheegaya in ciidamada ay dib ugu soo laabteen. dhowr jeer ayaa sidaan oo kale waxa degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe ku soo noqday dagaalada u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka iyo dagaalamayaasha shabaab. waa mahadsantahay Yunis. wasiirka ciyaaraha Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiri ayaa sheegtay in orodyahanadii guusha ka soo gaaray tartankii Djibouti ay aadi doonaan tartamo kale oo caalami ah. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan dhamaystiraya. Khadiija Maxamed Diiri, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya, maray jiraad u qabatay warbaahinta ayay sheegtay in ciyaartoyda Soomaaliyeed ee guulaha maalmo ka hor ka soo hooyay dalka Djibouti kuwa oo ka qayb galay tartanka orodada qaaradda Afrika ay ku faraxsan yihiin isla markaana ay u hambalyeynayaan. 2 ciyaaryahan ee Soomaaliyeed ayaa tartankaasi Djibouti ka dhacay kaalmaha ugu horeeya ka galay iyagoona ku soo guuleystay bilado dahab ah. wasiir Khadiija ayaa dhalinyaradaasi ku sheegtay in dhawaan ay ka qayb gali doonaan tartanka Olombikada caalamka ee bisha soo socota lagu qaban doono dalka Rwanda, iyadoona ku dhiirigelisay in ciyaartoydaasi inay guulo waaweyn ay ka soo hoyaan tartanka ay aadi doonaan isla markaana ay ka doonayaan sumcadda iyo sharafka Soomaaliyeed ay dib u soo celiyaan.
waxaa hoos u dhacay kaalmihii aan ka geli jirnay ciyaaraha adduunka. allah subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadinaynaa 30 sano kadib markii ugu horraysay inaan ka soo muuqanno maanta Soomaaliya in ay soo ceshanayso haybaddii iyo sharaftii ay ku lahayd caalamka, taasoo aad ka dheehan kartaan tartankii ciyaaryahanada orodada heer qaarad Afrika ee lagu qabtay dalka Jabuuti 15 bishan 2019 oo ay ka soo qayb galeen 15 dal oo Afrikaan ah, ku dhowaad 80 ciyaartooy oo ka qayb gashay 14 iyo waddanka martigelinaya oo ahaa dalka Jabuuti. haddii aan ku dul hakanno Cabdisalaan Axmed Maxamed orodka 800 mitir kaalinta koowaad wuxuu noo soo hooyay bilad dahab ah. Cabdullaahi Jaamac Maxamed orodka 500 mitir 1500 mitir wuxuu noo soo hooyay bilad dahab ah. orodyahanadii kale ee tartanka ka qayb galay Cabdicasiis Cabdullaahi Geelle orodka 3000 oo mitir kaalinta afraad. Cabdirashiid Yuusuf Cali orodka 800 mitir kaalinta lixaad. Shan Ali Iidow Xasan orodka 1500 mitir kaalinta toddobaad. haddaba waxaan u rajaynayaa orodyahanadeenna Soomaaliyeed in ay dadaalkooda sii laabaan maadaama ay galayaan diyaargarow ay uga qayb galaan kulanka olombikada caalamka haddii Allah awoodda la ogolaado ee soo socdo. orodyahanada Soomaaliyeed ee dhawaan ka qayb galaya tartanka olombikada caalamka ayaa loogu fadhiyaa inay guulo waaweyn ay u soo hoyaan dalkeena Soomaaliya isla markaana laga doonayaa fagaaraha caalamka ee tartamada isboortiska inay ka babiyaan calanka Soomaaliyeed. maamulka degmada Cadalle ayaa dalbaday in ciidamo si degdeg ah lagu kala dhex dhigo beelo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe. Liibaan Nuur Xasan ayaa warkan faahfaahinaya. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka hadlay dagaal beeleed maalmihii la soo dhaafay beelo walaalaha ku dhex marayay deegaanka Burdheer ee hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Muxudiin Cabdulle oo la hadlay raadiyo kulmiye ayaa sheegay in beelihii walaalaha ay ku dagaalamay halkaasi ay weli hor fadhiyaan isla markaana aysan jirin cid kala dhex gashay. waxaana baaq u diray cid kasta oo gacan ka sii karta sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa. iyadoo xabadda socotay ka baxeenba labada dhinacba cid u dhaxaysa hadda caawa ma jirto cid ku howlan waayo cid hadda ku howlan ma ogin Hirshabeelle ah amba federaal ah laakiin meesha dadka waxaa waaye meesha dagaalka wax badan oo ka socday waxaa waaye qabiilaadkii kalsoonidii aba yara marka ku yaro mar walba wax baa la qabaa oo la dhahay ayagana waxaa waaye dawladda wax kale ay isaga dareemayaan waa sida hadda baa arkaysid wallaahi cid walba waan soo dhaweeynaa waana ku maqan yihiin kulliito oo lagama u jiifo dhan walba waa la hadalnay hadday ugaas tahay hadday imaan tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday cuqaalay tahay culummada intaba siyaasiyiinta dawladda dhexe oo iyo isagii dawladda Hirshabeelle cid ma kulliito ma jirto waana wada qabaan kulliito wixii jawaabana saacadaha soo socday soo bixi doonaan insha Allah dawladda inta uu socday dagaal beeleedka deegaanka Burdheer ee una dhaxeeyay beelaha walaalaha ayaa waxaa ka dhashay dhimashada in ka badan 30 ruux halka dhaawacyadu ay ka badan yihiin 50 kale. qaar ka mid ah dhaawacyadaasi ayaa saacadihii la soo dhaafay la soo gaarsiiyay isbitaalada magaalada Muqdisho si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo. waa mahadsantahay Liibaan. wararka saaka inaga soo gaaraya degmada Qandale ee gobolka Bari ayaa sheegaya in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay isaga baxeen saldhigyo ay ku lahaayeen buuraleyda Cali-Miskaad ee gobolka Bari. deegaanka ay sida gaarka Al-Shabaab ugu lahaayeen saldhigga oo ay isaga baxeen waxaa lagu magacaabaa Daboolan waxaana toddobaad ka hor deegaankaasi ku dagaalamay Daacish iyo Al-Shabaab. sidoo kale wararka naga soo gaaray deegaanka ay isaga baxeen Al-Shabaab ayaa sheegaya in aysan jirin cid ku sugan deegaankaasi sida ciidamada Puntland, Daacish iyo kuwa Al-Shabaab. warka subax ee idaacadda kulmiye ayaad degeysanaysaan. warka dibadda ayaad maqli doontaan hase ahaatee. dalka Uganda waxaa la joojiyay qaybinta mushaar la siinayay qaxootiga iyo dadka ay nafaqa darada hayso ee ku nool dalka Uganda iyadoo cabsi laga qabo inay ku dhimatay haweeneyda. ku dhawaad 200 oo qof oo kale ayaa isbitaalka la dhigay kadib markii ay cabeen boorashkaasi oo lagu magacaabo Supercerial.
dabcan waxaa laga yaabaa inay wax ka jiraan balse waxaan u baahannahay inaan xaqiiqda ogaano. afhayeen u hadlay barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa sidaas BBC-da u sheegay. ma ogaan karno ilaa shaybaarka dowladda iyo kan WFP ay ogaadaan sababta ay dadka u xanuunsadeen, ayuu yiri. dadka xanuunsaday ayaa ka sheeganayay matag, qandho iyo calaamado kale oo la xiriira sumowga cuntada sida ay sheegayso wariyaha BBC-da. WFP ayaa sheegtay in bukaanada ay ka tirsan yihiin qoysas toddobaadkii hore loo qeybiyey shurbadda. ugu dambeyntiina baraf dhalaalay iyo roobab mahiigaano ah oo ka da-ay gobol Mareykanka ku yaal ayaa horseeday daadad keenay kumanaan daadgureen lagu sameeyo. 3 ruux ayaa dhintay, kuwaasi oo ka mid yahay nin saraakiishu ay sheegeen inuu isku dayay inuu dad uusan aqoon ka badbaadiyo qabowga daran iyo daadadkan ayaa taariikh cusub ka sameeyey ugu yaraan 5 gobol, waxayna horseedeen in xaalad degdeg ah lagu dhawaaqo. bulshooyin dhowr ah ayaa go'doonsan oo caawinaad dibadda ah weli helin. arrintan ayaa daba socota duufaan xoog badan oo ku dhufatay Mareykanka toddobaadkii hore. madaxweyne Trump ayaana daadadkan ku tilmaamay mid dhibaato baaxad leh geysatay, wuxuuna sheegay in aqalka cad uu si dhow xiriir ula sameyn doono mas'uuliyiinta gobolada. guud ahaan warkii subax waa naga intaa. cidda warkayagu sheegay waxay ka heli karaan radio kulmiye.com ama radio kulmiye.net. dhegeystayaasheena ku sugan magaalooyinka Beledweyne, Cadaado iyo Gaalkacyana waxay naga dhegeysanayaan raadiyaasha Hayaan, Cadaado iyo Wadani. Mareykankana kale FM ayaad naga maqlaysaan. amaano Allah subax wanaagsan.